calanka Soomaaliyana gurigaygu inuu u dumay Soomaali way ogtahay anna waan ogahay de waxa ka dhigay baaba taas aba kadib markii la dumiyay guri ay lahayd fanaanada caanka ah ee Safiya Tusmo oo ku yaalay magaalada Boorama waxaa jiray hadalhayn dhacdada ku saabsan inkastoo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta ee Soomaaliland ay sheegtay in guriga ay wada soo gashay taana ay keentay in guriga la dumiyo maadaama wadadu ay tahay mid dan guud ah laakiin waxa hadalka beeniyay fanaanada oo shir ay ku qabatay magaalada Boorama ayaa sheegtay in sababta guriga loo dumiyay ay tahay xanaaq ka dhashay hees ay u qaaday calanka Soomaaliya ku suganahay waa gurigayga gurigii shalay la dumiyay wuxuu ku yaalaa galbeedka magaalada Boorama airportkii baa hadda wax yar noo jira airportkan u dhownahay laba week markaan joogay dalka ayaa horta gurigan lagu qoray dumis jigjiga maalin weekan ka imay baa dumista lagu qoray maalintii dumista lagu qoray waxaan la hadlay ninka maayarka ka ah magaalada Boorama habeenkii markaan garaacay aan ku yiri walaal gurigaygu dumis baa lagu qoray say wuxuu jiraan wuxuu igu yiri gurigaagu 2 bilood haduu ka horeeyay kuma jiro dumista guriyaha la dumin doono dhismayaasha la dumin doono buu yiri waa wixii 2 bilood kadib la dhisay wixii ka horeeyay kuma jiraan maalin kadib halkan baan ku ballamiyay gurigan keenay gurigani wuxuu ka kooban yahay 9 qol wuxuu ku fadhiyaa 30 by 30 jagadan ka dambeysana aniga leh halkan aan maayarka keenay guriga markuu fiiriyay wuxuu igu yiri wadadu horta gurigaaga ma dhaafayso halkan bay ku istaagtay sayskay gurigayga jagadan ay ku joogsatay wadadu horta ana iska leh maayarku wuxuu igu yiri wixii gurigaaga xagga ka xiga airportka iska leh maadaama ay tii noqonayso ya qalkaaga dhaafayna waxaan sameyn doonaa intaanay guriga soo gelin baan joojinaynaa buu yiri gurigan hortiisa wada weyn baa martay tii anagoo isku og ayaa waxaan arkay inayna sheekadii ay dhowr week qaadatay intida iga gashay horta gurigani maxaan ku radaa $160,000 weeyaan waxa jooga ninkii maxaan ku radaa engineerkii dhisayay baa jooga dhulku ku fadhiyo qiimihiisana dadka Boorama degani way garanayaan waxaan u tagay maayarkan ku noqday xafiiskiisaan ugu tagay xafiiska markaan ugu tagay wuxuu igu yiri waxaan la hadlaynaa ninka hawlaha guud gobolkan u fadhiya xafiiska markaan ka soo baxnay ninka hawlaha guud haystay maxaan ku radaa Saleeman xafiiskiisaan ugu tagay waxaan ku radaa Saleeman waxaan kula socdaa gurigayga baa dumis lagu qoray dawga gurigayga duminayaana mid magaalada Maxfi u lana maahinoo shay wuxuu ka yimiday buurahan maxaan ku dhafaaraxyood aqalkayguna ku qaboobaya daw xataa ma aha hal bawle ah oo magaalada ka soo baxay ma aha gurigana ma dhaafayo marka waxaan doonayaa wala arinta inaad wax igala qabatood gurigii soo eegto Saleeban wuxuu igu yiri gurigaaga dayrkay kaga dhacday inta yar dambe dayrarkuna dhulkay la mid yihiin dhulka iyo dayrarku midna magma ah waxaan ku yiri Saleebano waxaan ku leeyahay walaal geed meel ka baxay ma aha waa gurigaygii aan dhistay Boorama ku yaalay oo dumis ku qorteen ayaan ka hadlaynaa Saleeman maalintaasi hadalkaygu meel fiican ma gaadhin waan iskaga imay maayarkan la hadlay maayarku wuxuu ii sheegay inuu sameyn doono wax kasta oo gurigayga ku badbaadin doono maadaama ay wadada gurigayga ku dhacday ay guriga dhaafaynin oo guriga ku joogsanayso saas baanu maayarka isku ogeyn wii kadib waxaan ogaaday inaanu maayarku arintan waxba ka qaban karin waxaanu ii sheegay wasaaradda hawlaha guud inay maxaan ku radaa arintan ay ka mas'uul tahay Saleeman baan ku laabanay Saleeman waan soo kaxaynay inaan ka u fadhiyo halkan wasaaradda hawlaha guud gurigan keenay halkan buu noogu yimi wuxuu arkay inaanay wadadani guriga dhaafeen oo guriga ku joogto waxa kale uu og yahay wadadan gurigayga ku dhacday inaanay wada meel u socoto amba magaalo kale u socoto meel oo kala taraafalayo oo cidba anfacaysa ahayne buurahan maxaan ku radaa faarixood ay ka timid oo in dhinacna ay ka timid cid deganeen dhinacana ay u socotana aqalkayga ay ku dhamaatay Saleeban waxaan ku walaalow 3 shay mid sheeg wadadani maadaama ay gurigayga ku joogsanaysa intaanay galin inaad joojiso ilaa sayskaygu bay ku istaagaysaa wadadan aqalka hormartay inaad isticmaasho daawal badow baan nolahaynoo gurigu 3 wado lahaa iyo inaad lacagtayda ii celiso guriga sida doonto baad ka yeesho hor dadka waxaan u sheegayaa dad badan baa waxay leeyihiin waxa kugu dhacay sidan daw baa dhacay waxa baa dhacay wax way kugu dhici karaan meesha aad adigu leedahay aad gadatay anide meesha layma siinine maalkaygan ka bixiyay guriga xoolahaygan ku dhistay dhulkan ana gatay waan cashuuray Soomaaliland $200 bay 3 sano ka hor igu cashuurtay dhulko kaliya hatay meel iyagu siiyeen iyo meel waqfi la igu siiyay toona maahay waa maalkayga horta waxaan ka hadlayno wada way kugu dhici kartaa ceel biyo laga helo baa gurigaagu noqon kara iskuul baa looga baahan kara dawladda u baahan karta public property buu noqon kara laakiin xeer buu leeyahay oo xoolahaaga hadii loo baahdo waa in lagu qiimeeyo adigana maalkaagii lagu celiyo sababta gurigaagii lagaaga qaadayna lagu sheego sheekada halka markay inamada noo mareysay waxa la igu yiri nin baa ka imanaya bari wasaaradda hawlaha guud haysta ninkii baan 3 week sugayay halkan buu yimid
magaciisa ma xasuusto Cabdilaahi maxay baa la yiraahdaa agaasimaha hawlaha guud ee Soomaaliland weeyaan malaha hal nin baa ka sareeya halkan uu igu yimi waxaan ku yiri walaalo gabadhi gurigeeda la duminayay baan ahay arrinteedo tafatiran buu hayay wuxuu gurigaagana waan ogahay waa la ii sheegay qofka taayna waan ku garanayaa anigu waxba kama qaban karo maxaan ku dhahay gurigaaga iyo arrimahaaga wuxuu anigu nin ma yihi engineer ma yihi hawlahani waxa weeyaan waa siday wax lagu sheegay wax u dhaceen waxba kama bedeli karo waxaan ku yiri in adeer Somaliland geed baa xaq helay oo dawga hareerihiisa la mariyay laga leexiyay waxaan ka hadlaynaa geed ma ahe waa guriga waxaad ii sheegtaa xaq uu geed helay ee gurigayga heli waayay inanka intaas oo ka xanaaqay furku tuuray oo baxay sidii baanu isku ogeyn guriga la iigu yimi anigoo raba inaan maalinta hadlo waxa la iigu yiri hadlin waxa maqan bada saafkii gobolka bada saafka sug bada saafkii baan sugayay sidoo kalena waxaan la hadlay maxaan ku dhahdaa inamaan la hadlayo waxa la ii ballamiyay ninka hawlaha guud ba haysta ayaa la ii ballamiyay ilaa Cabdilaahi Abakar kiibaan maxaan ku dhahaa ballantiisa la iigu maqnaa anigu dalka rasidan kuma ihi marti baan ku hay tigir baan soo goostay mar walba tigir baan beddelanayo dib u dhigayo nimankan inta daba soconayo de 2 bilood iyo maalmaha la ila meereysanay iyadoo sidaa tahay oo maaragtay aan sugayo maxaan ku dhahdaa inaan baro saabkii gobolka sugana aan dadkii ka ogolaaday aan minka inaa bakorna maxaan ku dhahdaa aan ballantaas in la iga soo sameeyo ka ogolaaday ayaa shalay waxa lagu ku soo waabaristay aqalkayga carfiidad la galiyay horta dad baa waxay leeyihiin guriyo badan baa la dumiyay guriyo badan lama dumin gurigayga la dumiyay shalay guriga halkan ku yaala abtigay baa leh faami baan ahay inaan kan gurigiisa shalay isagana carfiidada la galiyay faami baan ahay marka gurigaygu horta koow buu noqday in shalay la dumiyo mid kale dadka reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa xilligii guriga la duminayay la islama gaadhin wali dawiyadii waxa socda mashruuci dawiyada la sameeyay baa socdo dawiyadii ma dhamaan waa inay horta meeshii daw noqonayso dhamaato roodhadka waaweyn iyo kuwa yar shaxdaaba inay dhamaadaan marka dadka lala kulmo nin walba maalkiisii waxa laga yeelayo in loo sheego de marka dumis haday noqoto iyo dumis hadaanay noqoninba in maxaan ku idhaahdaa horta qofkii maalka lahaa de maxaan ku dhahdaa lagala hadlo oo de xoolihiisii loo qiimeeyo weeyaan waxay dawladdu lahayd iyo wax la isiiyay iyo wax meel lagu waa maalkaygii يا إن أنا أقول مالك يجي كسرني نونا كتجي إلى هنا وأجيه Somaliland وأكتاه نمانك أرنت نوح السعران أنا قد وان دعوانا يا وان عبنا يا تونا أرن معي أم بمالك يجي بيدين علينا يعلنوا دوحن حق لها حق يقعد مرنيسان أم بدي ولا ليالو مقالب موجود أو قصار بربر كينت هاللي يجلي جرسيه قرية عرورت سيد عرفيد الجليه إلا حدنا أنا عيد قال هذا الشيء عيد حوله يجي ما قد دونت تونا أنا قرنين أيه حدنا وحيد يرتين حرق ليلة راتسنيو واللي يقول محن كذا دايس الصحراء حرق باتهاي صدح معلومات كهرباء ليلة صوهد لي مالين تسوي صدحات كوبات تليفون كم قبل كوسانو تليفون أنا قرنت بدو مقبته إن شاء الله ما هنا درهات بالليلة صوهد لي وحلي يقول لي صلدق قد حقيقة هرجيسة يا لقى دنيا يا كالي ده وحن مودي وابن فهمي وايبدي صلدق قد حقيقة هرجيسة وحيجا صوق عليه بريبان إمام بانكودي أنا جو دونية يعني محن كده هذا إن تجبأ سلدقي دحون هذا ده محل يجوا هستا أيه شلي واحد عادي إن جوري يجي للدنيا تاسبان هرت شلي وتجي واي إن إلا يراتسنا يبريها ندب وانوجا كو هرت وضن كمر كان صوق عليه وحل يجودي وحفلة ده أوت سومال لأنكو قفصن كرتها بيراتي مجرته دبعتها كدلان دونتا إن قرندمس بات هاي دولدو محن كده هذا والله هستا إن حفلتها قفصنين وحول بشد داون بانك دقي dadkii xataa igu yiri waan ku sugaynaayo waan ku soo dhawaan in casuumad la ii sameeyo waan ka diiday reer Booramaday way wada joogaan si aanu hadalba uga dhalanin taliska guud Somaliland ayaa laga soo amray in maxaan ku idhaahdaa la xidho waxa la keenay oo wiigan la wareejinayay clip laga soo qaatay kawda luuliyo maran ku qabtay maxaan ku idhaahdaa Mareykan aan ku qabtay على قرندمس باتهاي على كصوماليا هرجيسة كجه هستي وحلا هي كليبيات هرجيسة قد ضبطت على كصوماليا كجه هستي فلان ورد ده فيديو هذا إنه كنا ويقرح بدنا لهذا إنه من كاس الشيء عد كودينا وان هي أنا جو فنانة صوماليات بانه ومد الصوماليات بقى اسمن هذا حمر جوكتي هذا جبوت جوكتي هذا جوجي جوكتي هذا هلكن جوكتو أنا جو هرت شعبي الصوماليات هذا تين وادي اسمنتي سياسي أنا جو ميه سياسة دين أنا جو وحبي مجلين على كان دونا نهي سكرة الجستيت كان دونا كي سكرة دولة دونا نهي سكرة مدحوينها دونا تاجر كرة قف حرة أيانا هاي Soomaalinimada idana cid uma daba fadhiisan naag Soomaaliyeed baan hayde marka ninkii doonaya inuu aniga xirooynimada yar soo hanjabay ilaa saaka dambi kala ad gashayo amar diidaad samaysay bay yiraahdeen oo wad soo xirin weyday shalay ta maxaan is xireeyaa xaafadeedii baabad carfiidad mariseen
anigoo raba inaan hargeysa tagaa shalay gurigayga la dumiyo la igu dhiso soo xirey horta mid baan idin sheegayaa inaan idin imaado waan diiday anigu ka Boorama tagi maayo ka hargeysana tagi maayo xaniiyay doontay in aniga inta la ii yimaado la xidho inta xoolaha iga la burburiyay xarig la iigu dari maayo calanka Soomaaliyana gurigaygu inuu u dumay Soomaali way ogtahay anna waan ogahay de waxa ka dhigay baaba taas aba ma fahanteen anigu Soomaalinimadayda farmaajana uma daba fadhiisanayo Muuse Bixin uma daba fadhiisanayo Ismaaciil Cumar Gelin uma daba fadhiya naag Soomaaliyeed baan hooyada yaabay anoo Soomaaliya i dhaleen anoo Soomaalina waan dhiman doonaa ninkii i qaadayay aniga i xidhay hargeysa xoog igu geynayo raydeer halka ma joogaa